ها ماشي adiga joogay adigu bal waxa dadka ka jaahil jirta ama dadku su'aalo fara badan bay isweydiinayaan maskaxdooda ka guuxaya doontan way dhacday doomihii kale garab taagnaa miyay ka yacan maxay dadku u badbaadin waayeen mid kale boontan yar ee kale badda loo diray iyadoo adoon aad u yar ee lagu bariga ku noqon kartid bariga u dhow badda lagu biimeeyay ee 3 qof saarnaayeen dadkii soo diray doontan su'aasha kale dadku isweydiinayaan waa maxay sababtan dadkii oo dhan dhalinyaradii oo dhan wax isugu tageen Masar waxaana looga sheekeeyay in ay Masar ka jaban tahay ama ay ka magafiyo kale aanay lahayn taasoo dad badan oo aan tahriibi jirin ba ay soo kicisay oo meel cusub baa la helay oo dardarsiya sababahaas iyo waxyaabaha ku xeeran ee aad aqoon u leedahay maadaama adigu meeshii joogtid bal dadka u faahfaahi oo waxa adigu dareemaysid iyo sida wax u dhacaan iyo sida ay doontan iyadoo la rarayo dadkii la iskaga guray doonyaha inta badan waxa la arki jiray doontoo soconayso dhacday ama doon masaafo jirto dhacday doontii oo iska taagan oo dadkii lagu guray oo la soo waday oo marba 20 qof la keenayo oo buuxsantay oo doonta dhexdeedii mudaharaadba ka dhacayba sida loo oran karo markii dambana dadkii la iskaga tagay xitaa iyadoo doonyihii badnaa ee soo guray ay taagnaayeen tii yarayd ee badbaaday dadku saarnaayeen lagu qasbay in ama la toogan doono haddii bariga ku noqdaan ama ay sidaa badda ku xulaan oo siday sheegeen lagu yidhi ma noqon kartaan sidaa ku gala qasab ku gala doon yaro bila saada lagu talagalay inaanay masaafada badan jirin oo tan gacan yaro u ahayd bal waxaasoo dhan ka dadka ka jaahir dadku aad iyo aad bay de waxaasoo dhan isweydiinayaan inta badan warbaahintu kamay hadlin bal aad iyo aad waxaas ugu tafadir dadku Al-Jazeera News ha ka helaan xogtan muhiimka ah siday sheekadu u dhacday haddaan dib idinku yaro noqdo wax weeyaan meel aan Iskandariya meel la yiraahdo bahalu ka baxaan doonyahani marka meel xeebta ka yara go'an oo waxoogaa u jirta ayay doon weynaysi soo taagtaa halkaas loogu geeyaa dadka laashash yar baa dadka lagu guraa lagu qaadaa doonta weyn lagu gaarsiiyaa doontani meel badweyn kale kumay degin bartii ay taagneyd ee laga rarayay ee dadka rakaabka loogu geynayay bay ku degtay doomaha yar baa intay soo noqdaan Iskandariya yimaada dadkay qaadaan 20 iyo 30 qof bay u qaadaan doomahaas u geeyay doonta weyn marka bartii lagu rarayay iyadoo taagan bay degtay sababtuna sidan horeba idinku soo sheegay waxay ahayd tira ama number ka badan numberkii loogu talagalay baa la saaray sidii loogu waday ee loo saarayay dadkii loogu gurayay laba qalbac bay u kala dhacday inankaan hadeerta idin sheegayay Greegu jooga maanta la xidhiidhay waan la hadlay si wacan baan u wareystay wuxuu ugu yiri anu waxaan ahaa dadkii markii ugu dambeysay meesha la geeyay laashkii yaraa nagu wareejin lahaa kamaan soo degin buu yiri sababtan u badbaadayna sababtaas ahayd deeman u dhimanaynin oo tiisina may dhamaanin marka waxa meesha ka dhacay oo dhan dushan ka daawanayay buu doontii anigoo arko oo ay laba qalbac u kala jabtay oo ay sii degaysaa haddana dhalinyarada iyo dadka inta khasab laashashka lagaga soo dejiyo lagu gurayayo nimankii masaarida ah ay ku gurayeen buu kuleeyahay waa waxaan aad uga xumaaday runtii markii dambana wuxuu yiri markii ay quustay dadkii wixii xagga sare saarna khananka hoose ama dabaqyada hoose dadkii ku jiray de way ku qufulaayeen ma soo bixi kareenin sidii bay ku degeen oo iyagu dad halka ku qufulan bay ahaayeen xataa xarakaad may sameyn kareen wixii dusha sare saarna dabaqa sare way soo daateen oo iska soo tuureen markay doonidii degtay wala badbaadin karayay oo laashiskii yaryaraayo dhan baa hareerahooda taagnaa والله سيدا يقول دتك وصبينا يلا شيشكي كسو يا عيس لين هيدين بدباديان أي كدقاقين فيديو أي برتي كدقاقين مركا دلين يروي سومالي وحبا ما يالان ميشن وحنا فيه نوها لاقيسان يوحا ميشن يالا وحسو عنتما يوحسو دقما يوحسو ليسو دقي كرمدنا ماها dhalinyaradu waxay u baahan tahay waxaan in laga wacyi geliyo dadkan waa la soo waalaya maraakiib baa la raacaba la leeyahay waxa meesha ka baxayana waa doonyaha yaryar ee maxaan ku idhaahdaa 150 qof loogu talagalay la saarayo 500 qof marka dadkan waa la soo lugooyo numberkii Liibiya mari jirayba wax ka badan baa imika halkan soo jooga waayo dadkii waxa loogu sheekeeyay dhalinyaradii Masar baa waxa laga helay safar safe ومراكب بالله راعية وحبات ذاتك لوجو شيكي مقالي قاهي الصومالي بي هالكا لا تاقنتي لا عيريسا
sababtuna waxa weeyaan dadka waxay ku soo beegmeen meeshii baddii oo yara xidhan bilihii qaboobaha oo ay bad xidhan jiray oo meeshii xidhantoonay cidiba ka baxaynin iyo dadkii oo si qayral caadiya ugu soo qulqulayay meeshaas ku soo beegmeen dabeetana wallahi waad yaabaysaa iminka saaracyada xaafadaha soomaalidu degto weligeed may gaadhin baa lagu odhanayaa soomaali intaa la eego qaahara isugu timaada lama arag waxaan ka naxaa waxyaabaha markaan dib u eego kuwaas way dhinteenoo dee wixii ilaahay xaggooda ay ku lahaayeen unbuu qof waliba la kulmayaa qadar bay ahayd wax kastaabana qadar ilaahay bay ku yimaadaan waxaa jira 500 maxaa 500 kumanaan malaayiin Soomaaliyeed oo jooga qaahira oo aan wax kale u joogin doonayeen inay iyaguna berri halka galaan caawada waxa la sheegay inay qaar baxayeen xalay qaar baabaxay habeen hore qaar baabaxay oo musiibo dadkii Soomaaliyeed waxay noqdeen dad aan wax allaala waxay ku cibra qaadanayaan aanay jirin wala maranayaa haddana waa lagu sii daadanayaa dadkan la wacyi geliyo oo wax loo sheego oo in maxaan ku raahday wacyi gelin la sameeyo xaqiiqada meeshan taalo loo bayaamiyo oo waxa Yurub kaga horeeya loo bayaamiyo oo mushkiladda ay gelayaan iyo waxay ka horeeyaan iyo waxay wajahayaan ba taabsiyo la tuso oo la wacyi geliyo waxaan dhalinyaray u badan yihiin qof kaliya oo 35 jir ka weyn uu ku yar yahay hadduu jirana waa 2 dhowr ka boqol qof ay dhintay wallahi arintaas waxay u baahan tahay in laga guntado oo laga dhiidiyo oo laga bareeray u baahan tahay arintaas. Assalaamu calaykum.